hagaag waxaan joogaa hoyga ay ka degan yihiin laba lamaane oo dhowaan iscalmaday ee calafna isku yeeshay Sadiiq iyo Ilhaan. waxaan jeclahay in aan waraysi kooban aan la yeesho. waraysigaasi waxa uu ku qotomaa muuqaal baraha bulshada lagu faafiyay kaasoo saameyntiisa yeeshay, waxaana muuqaalkaasi kasoo muuqday caruuska oo markaasi la ilmeeyay xilli damaashaadkiisa arooska uu socday marwadiisana ilinta ee ka tirtiraysay. kusoo dhawow telefishinka SBS. ugu horeyn ka waran dareenkaaga haddii aad dib u celiso xusuustaada xilligaas maxay ku saleysneed ee ilintii kusoo dhaaftay? aad baa u mahadsantahay Yuusuf Carab, waana kaaga mahadcelinayaa sida sharafta leh oo aad igu soo booqatay gurigayga. walaalow ilintaas waxay ahayd ilin ku saleysan ilin farxadeed bay ahayd, ma ahayn ilin la xiriirta murugan iyo wax la mid ah, mana ahayn ilin la xiriirta doqonnimo iyo waxa weeye wax maaragtay aniga xaggayga ka jiray oo dhiba. marka waxaan dhihi karaa waa ilin ku saleysnayd dareenka farxadda lahaa oo ay muujiyeen dadkii kasoo qaybgalay xalfadeeda arooska, dadka kasoo shaqeeyay. wax anigu aan maaragtay aan kantarooli karay ama aan xadidi karayna ma ahayn, waa dareen ay iga keentay xalfadeedii arooska. markii muuqaalkaasi uu ku baahay baraha bulshada, Soomaalida siyaabo kala duwan ayay u arkeen. laba qodob ayaana loo badinayaa. marka ugu horeyso, Soomaalida waa dhif iyo naadir inay ilin mataqaana meel fagaara ah xaaskooda ama afadooda ay la ilmeeyaan, waa dhif iyo naadir. midda labaad, xiisaha gaarku yeesho waxay tahay reemuduga aan lagu ogeyn jiljileec. markaas ayay falcelintii ugu badneed ay ku baahday. labadiina si toos ayay kuu saameynaysaa. maxay tahay jawaabta aad bixinaysid? jawaabta aan bixinaya waxay tahay inaysan dadku ahaan dad maaragtay u fikray si khaldan ama dad uga falceliya wax walba arkaan si xun, ay ka fiiriyaan dhanka wanaagsan, mar walba wax fiirinayaan. ilaahay subxaanahu watacaala iyo diintiisa islaamka labaduba waxayna fariyaan wixii wanaagsan in la qaato, wixii xunna laga tago. ma dhihi kara anigu dee wax aan diinteeda islaamka ogolayn inay bulshada ceeb la noqdaan, waa xoogaaba laga fiican yahay. wixii diinta islaamka ogoshahay qofkan waa inay la noqdaan wax wanaaga. anigu dareenka aan muujiya ma aha dareen dhib ku keenaya diinteena islaamka ama saameyn ku yeelanaya. marka waxaas dhihi lahaa dadkan sida khaldan uga falcelinaya inay yihiin dad qalbigooda iyo damiirkoodu intuba ay angegeen oosan wax naxariisa ku jirin iyo wax jacayla. marka maxaa ku micnayn kartaa adiga? dareenkaas waxaan ku micnayn karaa dareen farxadeed inuu yahay. dadka sida khaldan uga falcelinayana waxaan ku micnayn karaa inay yihiin dad aad aragtooda u liidato. marka maxaana la wadaagi kartaa xusuustaada waayeed intii xiriirkan uu soo socday? maxaad nooga sheegi kartaa waqtiga uu qaatay inaad xiriirkan soo afmeertay? wallaahi waqti aad badan buu qaatay, muddo 5 sano oo ku dhow weeye. waxaan kaloo oran lahaa dee qofku wuu dareemi karaa qofka markaa meel kale ku kala nooshihiin, qofkii makaa tagay makula joogaa, qofkii qof kale kaa doortay, asagii kalsooni kugu qaba, waxyaala badan baa isweydiinaysaa. marka riyadaas aad ku riyoonayso markii aad ku guulaysatid dee wax walba oo markaas kula gudboon ama wax walba oo naftaadu ay sameynayso dee cidna kala tashan maysid. marka telefishinka SBS wuxuu fursad kuu siinayaa inaad hal eray aad ku koobto xiriirkaaga ee maanta bilowga ah oo runtii maalmihii ugu horeeyay oo ilaahay calaf isugu keendara adigii iyo marwadaada. marka ereygaas aad dhahayso maxaa ka mid ah? ereygaan dhahayo wuxuu yahay aan kusoo koobayo in dadku noqdaan dad waxa weeye xagga lamaanahooda u jilicsan, rag iyo dumarba. dumarkuna inay u dabacsanaadaan raggooda, ragguna u dabacsanaadaan dumarkooda. weliba maadaama anigu aan nin ahay oo fariinta aan ragga u diriyaa waxay tahay inaysan is oran ninkan waxa weeye naagta u ooyaya ama qofka dumarka u ooyaya ma nin doqonaa, laakiin ay ka fiirshaan dhanka wanaagsan oo ah qofkan wax walba waa farxad ugu muujin kartid lamaanahaaga. waa mid saameyn ku yeelan doonta noloshaada dambe. qofkuna sida aad ugu muujiso dareen farxadeed iyo jacayl bulshada dhexdeeda buu asna kugula noolaanaya. marka fariinta aan u dirayo anoo hadalkayga soo gaabinaya waxay tahay inuu qof walba oo waxa weeye dunidan ku nool oo lamaane iyo guur ku haminayo inuu noqdo qof dareenkiisa iyo jacaylkiisa ku muujiya si farxad leh. ugu dambeyn telefishinka SBS wuxuu ku siinayaa fursad ah inaad cid u mahadceliso. arooskaagii yaad uga mahadcelinaysaa? arooskayga mahadcelintiisa kama wada gaari karo, boqolaal qof dad kor u dhaafaya ka qayb qaatay, laakiin waxaan u mahadcelinayaa qof walba oo ka qayb qaatay arooskaygan, hadday tahay labadeeda
faamilka gabadha iyo faamilkayga labadaba, asxaabteyda oo aana kala reebayn, laakiin dadkii sida khaaska ah arooskayga uga shaqaynayay oo qof walba oo tv-gan daawado uu dareemi karo qaybta uu ka qaatay, waxaan leeyahay mahadcelinta qof walba fadhigiisa bay kusoo gaaraysaa. aad baan u mahadsantiin. hagaag waxaan joogaa hoyga ay ka degan yihiin laba lamaane oo dhowaan iscalmaday ee calafna isku yeeshay, Sadiiq iyo Ilhaan. waxaan jeclahay in aan waraysi kooban aan la yeesho. waraysigaasi waxa uu ku qotomaa muuqaal baraha bulshada lagu faafiyey kaasoo saameyntiisa yeeshay, waxaana muuqaalkaasi kasoo muuqday caruuska oo markaasi la ilmeeyey xili damaashaadkiisa arooska uu socday, marwadiisana ilinta ee ka tirtiraysay. kusoo dhawow telefishinka SBS. ugu horeyn ka waran dareenkaaga haddii aad dib u celiso xusuustaada, xiligaas maxay ku saleysneed ee ilintii kusoo dhaaftay? aad baa u mahadsan tahay Yuusuf Carab, waana kaaga mahadcelinayaa sida sharafta leh oo aad igu soo booqatay gurigayga. walaalow ilintaas waxay ahayd ilin ku saleysan, ilin farxadeed bay ahayd, ma ahayn ilin la xiriirta murugan iyo wax la mid ah, mana ahayn ilin la xiriirta doqonnimo iyo waxa weeye wax maaragtay aniga xaggayga ka jiray oo dhiba. marka waxaan dhihi karaa waa ilin ku saleysnayd dareenka farxadda lahaa oo ii muujiyeen dadkii kasoo qaybgalay xalfadeeda arooska, dadka kasoo shaqeeyey. wax anigu aan maaragtay aan kantarooli karay ama aan xadidi karayna ma ahayn, waa dareen ay iga keentay xalfadeedii arooska. markii muuqaalkaasi uu ku baahay baraha bulshada, soomaalida siyaabo kala duwan ayay u arkeen. laba qodob ayaana loo badinayaa. marka ugu horeyso, soomaalida waa dhif iyo naadir inay ilin mataqaanaa meel fagaaro ah xaaskooda ama afadooda ay la ilmeeyaan, waa dhif iyo naadir. midda labaad, xiisaha gaarku yeesho waxay tahay reemuduga oo aan lagu ogeyn jiljileec. markaas ayay falcelintii ugu badneed ay ku baahday. labadiina si toos ayay kuu saameynaysaa. maxay tahay jawaabta aada bixinaysid? jawaabta aan bixinaya waxay tahay inaysan dadku ahaan dad maaragtay u fikray si khaldan ama dad uga falceliya wax walba arkaan si xun, ay ka fiiriyaan dhanka wanaagsan, mar walba wax fiirinayaan. ilaahay subxaanahu watacaala iyo diintiisa islaamka labaduba waxayna fariyaan wixii wanaagsan in la qaato, wixii xunna laga tago. ma dhihi kara anigu dee wax aan diinteeda islaamka ogolayn inay bulshada ceeb la noqdaan, waa xoogaaba laga fiican yahay. wixii diinta islaamka ogoshahay qofkana waa inay la noqdaan wax wanaaga. anigu dareenka aan muujiye ma aha dareen dhib ku keenaya diinteena islaamka ama saameyn ku yeelanaya. marka waxaas dhihi lahaa dadkan sida khaldan uga falcelinaya inay yihiin dad qalbigooda iyo damiirkoodu intuba ay angegeen, oosan wax naxariisa ku jirin iyo wax jacayla. marka maxaa ku micnayn kartaa adiga? dareenkaas waxaan ku micnayn karaa dareen farxadeed inuu yahay. dadka sida khaldan uga falcelinayana waxaan ku micnayn karaa inay yihiin dad aada aragtooda u liidato. marka maxaana la wadaagi kartaa xusuustaada waayeed intii xiriirkan uu soo socday? maxaad nooga sheegi kartaa waqtiga uu qaatay inaad xiriirkan soo afmeerta? wallaahi waqti aada badan buu qaatay, muddo 5 sano oo ku dhow weeye. waxaan kaloo oran lahaa dee qofku wuu dareemi karaa qofka markaa meel kale ku kala nooshihiin, qofkii makaa tegay makula joogaa, qofkii qof kalu kaa doortay, asagii kalsooni makuu qaba, waxyaala badan baa isweydiinaysaa. marka riyadaas aad ku riyoonayso markii aad ku guulaysatid, dee wax walba oo markaas kula gudboon ama wax walba oo naftaadu ay sameynayso dee cidna kala tashan maysid. marka telefishinka SBS wuxuu fursad kuu siinayaa inaad hal eray aad ku koobto xiriirkaaga ee maanta bilowga ah oo runtii maalmihii ugu horeeyey oo ilaahay calaf isugu keendara adigii iyo marwadaada. marka ereygaas aad dhehayso maxaa ka mid ah? ereygaan dhahayo wuxuu yahay aan kusoo koobayo in dadku noqdaan dad waxa weeye xagga lamaanahooda u jilicsan, rag iyo dumarba. dumarkuna inay u dabacsanaadaan raggooda, ragguna u dabacsanaadaan dumarkooda. waliba maadaama anigu aan nin ahay oo fariinta aan ragga u diriyaa waxay tahay inaysan is oran ninkan waxa weeye naagta u ooyaya ama qofka dumarka u ooyaya ma nin doqonaa, laakiin ay ka fiirshaan dhanka wanaagsan oo ah qofkan wax walba waa farxad ugu muujin kartid lamaanahaaga, waa mid saameyn ku yeelan doonta noloshaada dambe. qofkuna sida aad ugu muujiso dareen farxadeed iyo jacayl bulshada dhexdeeda buu asna kugula noolaanaya. marka fariinta aan u dirayo anoo hadalkayga soo gaabinaya waxay tahay inuu qof walba oo waxa weeye dunidan ku nool oo lamaane iyo guur ku haminayo inuu noqdo qof dareenkiisa iyo jacaylkiisa ku muujiya si farxad leh.
ugu dambeyn telefishinka SBS wuxuu ku siinayaa fursad ah inaad cid u mahad celiso arooskaagii yaad uga mahad celinaysaa arooskayga mahad celintiisa kama wada gaari karo boqolaal qof dad kor u dhaafaya ka qayb qaatay laakiin waxaan u mahad celinayaa qof walba oo ka qayb qaatay arooskaygan hadday tahay labadeeda faamilka gabadha iyo faamilkayga labadaba asxaabteyda oo aana kala reebayn laakiin dadkii sida khaaska ah arooskayga uga shaqaynayay oo qof walba oo TV-gan daawado uu dareemi karo qaybta uu ka qaatay waxaan leeyahay mahad celinta qof walba fadhigiisa bay kusoo gaaraysaa aad baan u mahadsantiin runtii waa sheeko aad u xiiso badan Fadmo maxaa ku baxay maxamedow wax cajiib ayaa halkan ka dhacay marka hore aad baan ugu mahad celinaynaa Saadiq iyo marwadiisa iyo wareysigaas uu ogolaaday bahda SBS xafiiskayga magaalada Gaalkacyo arintani waxay ahayd arin aad u xiiso badan oo 24 saac la soo dhaafay social media iyo Soomaalida dhexdeedaba aad loo hadalhayay marka waxaan u maleynayaa de wada idin ku furantay maxamedow ma diyaarsantihiin runtii Fadmo waxyaalaha aadka u xiisaha waxay tahay way adag tahay in la arko qof Soomaaliya oo jacayl dartiis la ilmeynaya wayse si adkeedba marka waxa sheekada xiisaha u sheelay waxa weeye wiil reer muduga oo inta badan marka la kaftamayo la isku dacaydin reer muduga arimahaas uma jiljilicsanaa oo la arkay isagoo ilmeynaya sida caadiga ah arintani waa mid guud ahaan badnimada caadi ka ah oo wax inta badan dhaca sida gaar ahaan wadamada Hindiya oo aad jacaylka iyo meelo kalaba marka de raggii Fadmo waa u jeedaan oo awal waxay dumarku ku eedeyn jireen raggu ma jiljilicsanaa laakiin reer muduga ugu aadadkaaba ragga waa loo jeedaa maanta jacayl dartiis la ilmeynay waxay arintan idin ka dhigantay waxaan rajaynayaa de kolley aad baa loo hadalhayay haddii meesha uu Saadiq ka ilmeeyay ay gabadhu ilmeyn lahayd waxa laga yaabaa saameynta iyo hadalhayntu inay intaasi ka yaraan lahayd oo de dumarnimada iyo inta badan waxa la dumarku waa dad emotional oo aad laakiin waxa arinta iyaduna hadalhaynta la ay tahay maxamedow ilhaan waxa ka muuqatay geesinimo badan oohin kumay darin si qurux badan bay laabta u gashatay seegeeda ilinta ay ka tiraysay farxad badan baa ka muuqatay marka de waxa ila tahay dad badan baa waxay oran doonaan mar hadaan loo ooyin waa sheekadaas laftigeedu bal waxay arki doonaa kulay waxay furaysaa wax walba mar bay bilowdaan Soomaali badan oo isu ooyisa oo waa la arki doonaa bulshada waa la wada ooyi jiray horta laakiin waa qarsoonay daadiyad laakiin hadda banaanka soo baxay